wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland Cismaan Cabdillaahi Saxardiid Cadaani ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday idaacadda BBC-da kuwaasi oo kala ahaa Suleiman Mugera oo ah madaxa BBC World Service ee Africa iyo Caroline Kubera oo ah madaxa laamaha Soomaaliga iyo Soomaaliga ee BBC World Service kuwaasi oo socdaalkoodu daarnaa xalinta dacwad ay ka gudbisay xukuumadda Soomaaliland oo salka ku haysay inay idaacadda BBC-du aanay dhex ka ahayn doodaha ay qabanayso haddaba kulankan ayaa waxa uu horeyntii ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland Cismaan Cabdillaahi Saxardiid Cadaani oo halkaasi kaga xog warramay waxa ay BBC-da u gudbiyeen iyo waxa ay ku salaysnayd waxaan ballan lahayn oo noo imanayay Suleiman Mugera oo ah regional director ama ninka gobolada Africa oo dhan BBC-da oo qaabilsan oo ah halkan maxaa dhacday midagteeda ninka fadhiya iyo Caroline Kubera oo iyaduna maxaa dhacday Nairobi Facebook oo qayb Soomaaliga iyo house ama BBC-da lagu yaqaan waxaan u sheegnay warqadeeda daaranayd in ay dhinac u jejeedho doodaha la qabta ama warka BBC-da ka baxaaba marka anagoo tixgelinayna xiriirka aanu leenahay dheeraa ilaa iyo kontonadii soo socday aanu la leenahay dalka Britain iyo BBC-da waxaanu ka wada hadlaynaa aanu isla garanay inaanu wixii jira maxaan ku dhahdaa cabashooyinana laga hawlgalo oo la dhameeyo mustaqbalkana si cadaalada oo dhinacna aan cid la saarayna dhexdhexaadnimo ah maxaan ku dhahdaa loo sii daayo warka BBC-da iyo doodaha maxaan ku dhahdaa uu noqdo oo BBC-du sidii markii horeba ay wadankan loogu soo dhaweyn jiray maxaan ku dhahdaa loogu soo dhaweeyo maxaan ku dhahdaa wixii shaqo ay ka qabanayaan nooca doontana ha noqotee iyagoo soo maraya waxa u yaala immigration-ka iyo wasaaradda warfaafinta inay maxaan ku dhahdaa hawlaheeda ay sameeyaan annaguna aanu ku faraxsannahay sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay Suleiman Mugera oo ah madaxa BBC World Service ee Africa oo uga mahad celiyay sidii wanaagsan ay u soo dhaweeyeen sheegayna in wixii khaladaad ay ka jira BBC-da ay sixi doonaan sidoo kalena sheegay inay soo gaadhay dacwadii wasiirku u gudbiyay isku soo wada duuba xukuumadda Soomaaliland ayaa dacwad ka gudbisay idaacadda BBC-da markii ay qabatay dood ku salaysnayd saldhigga military isla markaasina ay xukuumaddu sheegtay inay doodaasi BBC-du ma jira habaabisay Boqor Axmed Cabdi Somali News TV Hargeysa